labadii sarkaal haddaba ugu sarreeyay ee hayay talada dhinaca waqooyi xilligii ay ka socdeen dagaaladii dhex yaalay xukuumaddii maxamed siyaad barre iyo SNMT waxaa ka mid ahaa General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo xilka kala wareegay General Gani sanadkii 1986 inta haddaba aynaan muddadaasi u gelin General Morgan xilligaasi ka hor waxa uu madax ka ahaa qaybtii 21aad ee ciidamadii Soomaaliya ee fadhiya iyagu gobolada dhexe isagoo warbixin kooban ka bixinaya arrintaasina waxa uu jananku yidhi qaybta 21 intaan joogay runtii lafteedu dagaalo badan baa ka socday oo dhinaca dawladda Itoobiya uga imaanayay iyo mucaaradad markaas dawladda ku kacsan markaas ka bacdi lafteedu ma dhibaato yareen dagaalo sokeeye oo gobolada dhexe lafteeda ka jiray runtii wixii aan oran karay waajib idinku tahay inaan ka qabanana waa ka qabanay dhibaatooyinkii ugu cuslayd xasuusan karta maxaa kamid ah maxaa ku soo waajahay waxaa kamid ahaa waqti aan halka la bedelayo qaybta waxay ahayd qayb dagaalo badan gashay waxayna ahayd waqti dawladda Itoobiya iyo ururka SSDF ay qabsadeen Balanbale iyo Galdogob ay qabsadeen galdow marka aagayga ma ayaan ahayn qayb kale ahayd laakiin Balanbale waxay ahayd meelaha laamiga Guriceel Boomara waa ogtahay meelaha ugu dhow laga soo gudbi karo oo wadanka laga kala goyn karo si qorsho ahaa ayaa loo qabsaday Balanbale ka bacdina waxay noqotay inaan sameeyno difaac adag oo aan la soo mari karin marka qorshaha dhinaca dawladda Soomaaliya ma uusan ahayn in la weeraro horeeto la weeraray inta kala socdeen oo midkay ku qabsadeen kadibna waxaa loo bedelay qorshihii ciidamada in difaac uu noqdo oo ayaan soo gudbin waxaa waajibka nagu markana la ku siiyay wasaaradda gaashaandhigga wasiir gaashaandhigga marka General Maxamed Cali Samantar ayaa noo ahaa ka bacdina waxaanu adkeynay difaaca Balanbale iyo meelaha kaleeto intaan joogay weerar kale way soo qaadeen caabad bay ku soo qaadeen dagaalka runtii si fiican baan ugu jebinay dawladda Itoobiya ciidamadeeda marka wax Soomaali lama soconin laakiin markii waxay u qeyshadeen Soomaali u qeyshadeen kuma ay soo gaarin marka waxaan marxadan kala kulanay wuxuu ahaa difaacaas dawladda Itoobiya inaanu dalkana ka difaacno hadii aan su'aal halka ka weydiimo waxaad leedahay dagaaladii mesela ka dhacay Balanbale iyo Galdogob ciidamada soo duulay wax Soomaaliya kuma jirna waxaan ciidamada Itoobiya bay haynaya ما waxaan ku iri waxa dawladda Itoobiya iyo ciidamadii SSDF oo wada socda ayaa qabsaday Balanbale laakiin muddadaas waa iga horeysay waa intaan qaybta la bedelin waa tahay marxaladan tagayo waajibkan ku qabo waxa in difaac la adkeeyo oo aysan aan loo ogolaanin ciidamada Itoobiya iyo SSDF inay soo gudubto oo ay laamiga rasmiga ah wadanka isku xirayna kala gooyaan kadib haddaba markii uu dhamaystay General Morgan muddadii uu joogay qaybta 21aad ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waxa loo bedelay qaybtii 26aad ee waqooyiga oo hoggaankeeda fadhigiisu ahaa magaalada Hargeysa waxa haddaba General Morgan aanu weydiinay sidii xaaladdu ahayd markii Hargeysa loo bedelay waxaana uu yidhi waxaan kala kulanay meel kacsan oo buuqi jiro oo macaadi ka jirto oo dadku aad u kacsan yihiin baan ku aaday kadibna waxaan isku day inaan bedelo siyaasadii markaas ciidamadu maadaama ay lahaayeen awoodda siyaasadeed iyo midda military bay lahaayeen waxaan isku day inaan wax badan ka qabto aniga shakhsiyan iyo saraakiishii ila shaqeynaysay intaba aan halka ka weydiiyay markaa su'aale maadaama aad halkii tagto oo isku dayday inaad wax ka qabato inaantay wadcigii markii hore jiray bal waxaad yarkaadaysaa General Morgan wadciga jira caynku ahaa iyo talaabooyinka adigu aad qaaday markaasi si aad inta wax uga bedesho wadciga jira waqtiga wuxuu ahaa urur SNM oo asaasmay oo laba xoogeystay oo ku kalba helay muxuu ahaa taageero shacbi ah ka helay magaalooyinka iyadoo markaas loo nisbeynayay in maartay waqtigii shuruuc lagu soo saaray nabadgeel lagu adkeynayo marka dhibaatooyinka la kulmo waxay ahayd magaaladu markaas waxay ahayd Kerbiyo ama Bando bay ahayd waxa la qabanayay qaad qofkii lagu arko ama magaalada ku cunay waa la qabanayay culays badan markaas saaraa oo magaalada qaar ahaan Hargeysa iyo Berbera iyo Burco
waxaan amar ka bixiyey in nidaamkii horena la bedelo dadka qaadka haddii guryahooda lagu geliyana in la daayo wixii dibadaha iyo xuduudka ka soo gelaya waayo sharci dowladeed baa markaas dee soo baxay in dibadahaas lagu qabto laakiin aan magaalooyinka iyo dadka guryahooda la gelayo iyo muxuu ahaa in taas la daayo nidaamkaa runtii waa ku guulaysanay shacabku markaa nafis bay heleen oo in badan oo taageero u ahayd s n m ta oo u arkaysay in cadaadis lagu hayey ama ciidamada ay ku hayeen markii culayskaasaan ka qaadnay oo baandoy ka qaadnay oo noloshii ay soo noqotay waxaa timi in dadkii shacabka ahaa ay haaraamaan ama ay taageeradii u hayeen s n m ay kala noqdaan in badan waana sababta keentay markii dambe si s n m ay dadkii kalsoonida ku soo celiso ay u dileen korneyl ciidamada nabad sugidda ahaa oo hargeysa dhexeed ay ku dileen taasaa marka waxay keentay nabadgelyo xumo cusub inay abuurto iyo haddana bay keentay marka tallaabooyin badan iyo talooyin badan xataa dowladda kabineedkanaan u gudbinay ayaa jiray oo annagoo la kaashayna maamulkii ka jiray gobolka ama xagga xisbiga ha noqdo ama xagga maamulka ha noqdee talooyin aan isku darsannay oan isleenahay in wax badan oo wax laga bedelo qaabkii hore dowladdu waxna naga yeeshay waxna markaas sharcigii markii la cuskeeyo taas lama ogolaan karo laakiin waxaan isleenahay anagu in badan baan wax ka qabanay si shacbiga soomaaliyeed ee waqooyiga oo markaas yacni shacbiga marka leeyahay marka urur mucaarad asaasmo dabcan taageer u baahan taageerada waxaa loo baahan marka inaad saamayso dadkii shacabka hoose inay saamayso aan kala dagaalanay ciddii siyaasiyan u taageeraysa ama u aaminsan muxuu ahaa mabda ahaan u aaminsan ururka mucaaradka waa meesheeda laakiin shacab badan baan runtii ku guulaysan waatay aan su-aal halkaa kaa weydiiyey waxaad sheegtay general morgan in aad talooyin soo jeediseen oo xagga xukuumadda u jeediseen oo aad kaga talinayseen xaaladda meesha ka taagan wax ma nooga sheegi kartaa talooyinkii aad gudbisay waxay ahaayeen aad gudbisay wixii lagaa aqbalay iyo wixii lagaa diiday waxaa ka mid ahaa waxaan u jeedinay markaa soomaaliya oo dhan waxaa qaadka waa tii laga mamnuucay markaa soomaaliduna waxay markaa u arkaysay in qaadku noloshooda ay ku dhisan tahay maaha cunistiisa keliya laakiin dhaqaale ahaan inuu ku dhisan yahay waayo wajaale waxaa ku yiilay beero ilaa gabiley beero qaad baa ku yiilay oo wakhti dambe la gubi doono waxaanu soo jeedinay in beerahaas dadka shacabka mar hadday u arkeen dhaqaalahooda ku fadhiyaan beerahaas waxaana ay dhaqdhaqaan ay ka helayaan dadna ku masruufanayaan in loo fasaxo qaadka la iska daayo beerahan aan la burburin dabcan inka siyaasadda dowladdu marka waxay ahayd in meesha qaadka laga gooyo in wax la cuno lagu beero taas waa nala ka diiday waxaa layihi baalkii sharcigu dalkao dhan buu u siman yahay beero qaadna dalkao dhan waa laga tirtiray mana la dayn karo waa qodob bay ahayd xaalaha nala ka yeelay waxaa ka mid ahaa in la fuudayo dekadda berbera oo ganacsigu si fiican uga socday in loo fasaxo jabuuti iyo isku xirka waqooyiga oo aan la xanibin oo wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynuhu u fasaxo in fududeyn loo sameeyo dhinaca ganacsiga oo xayiraad saarayd laga qaado taas waa nala ka yeelay xaalaha security-ga ku taxalluqa in la fududeeyo waa nala ka yeelay qodobada noocaasa runtii ka mid ahaa in yacni dadka shacabka ahi ay dareemaan inaysan dowladdu aysan ku haynin colays iyo cadaadis aysan ku haynin laakiin mucaaradada ka asaasantay s n m inay sabab u tahay dhibaatooyinka shacabka soo gaaray qaadka ka soko waxyaabo kaloo maalan xagga nabadgelyada ku saabsan oad leedahay tallaabooyinka caynkaasa ha la qaado oo tale ahaanaad ku dhiibtay ma jirtaa waa jirto dad ama siyaasiyan loo xiray ama aan markaas la baarin oo xabsiyaasha ku jiray ama hay-adaha nabadgelyada ku xiraa waa la sii daayey oo annagu markaan ku sababaynay wax cad haddaan lagu haynin inaan xabsiga lagu hayn karin la sii daayo marka qofkii haddii ay caddahay dembi inuu galana maxkamad in loo gudbiyo qofkii aan dembigiisu caddayna in la sii daayo waa ku guulaysanay taasoo xukuumadda dowladda waa naga yeeshay waa in la sii daayo waxaad ka warantaa general morgan inkastoo aad sheegtay inaad ku dadaashay maalan sidii inaantay culayskii markii aad tagtay meesha loo yarayn lahaa haddana arrintii ma sii yarayna waa tii markii dambe qaraxdee meel fog gaadhay maxaad u malaynaysaa inay sabab u ahay taas xaggiina iyo xagga dhinaca mucaaradkaba gaar ahaan xaggiina idinku maxaad u malaynaysaa inaad tallaabooyin qaadeen aad imika dib u eegi karto horta waa run arrintu markii dambe way sii xumaatay dee gacanka hadal bay gaartay
inkastoo wakhtiga marxaladda iyada ah dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya wakhtiga mengistu oo xiriir dhex maray xiriirkaas oo ku salaysnaa in la debciyo colaadda labada dowladood labadoodna ay ku heshiiyeen masalan waxaan ka mid ahaa rag sarkaalkii u sarreeyey ee loo magacaabay dhinaca soomaaliya annagoo guddiya dhinaca arrinta dhinaca ciidamada aanu wakiil ka noqono dowladda soomaaliya kanana xaajoonno dowladda etoobiya muddo 45 casho ayay nagu qaadatay heshiis guud buu ahaa mid qarsoodi ma ahayn in ciidamada la kala raro oo la kala durkiyo 15 kilomitir qolba dib u baxdo si loo dabciyo colaadda taagan si markaa loogu gudbo xiriir kaleeto oo dowladda soomaaliya dowladda etoobiya wakhtiga dhex mara arrintaas runtii waxaan u fulinay sidii loo baahnaa ama labadood ku heshiiyeen baan u fulinay laakiin waxaa kadib khayaano ku jirta heshiiska etoobiya oo weliba dhinaca mengistu kadib waxaa heshiiskaa ka mid ahaa markii ugu horreysay aan jegjiga ku shiray shirkii ugu horreeyey qodobada waxaa ku qoraa mucaaradka labada dhinac mucaaradka labada dowladood qodob walba dhinacay joogtaa in aan la howlgelin laga joojiyo taageerada muxuu ahaa iyagana muxuu ahaa ay dib u qaadaan xuduudka ka qaadaan dagaal inaysan ridin way ku jirtay muran badan baa naga dhex dhacay ilaa markaas muxuu ahaa runtii qodobkaas iyagu ay ku adkaysteen waxaana u qarsoonayd markaas iyagoo SSDF oo ururkii ugu horreeyey oo mucaarad dowladda soomaaliya ku noqda burburiyey oo maaragtay wiiqay muxuu ahaa hogaamiyihii markaa SSDF oo cabdulaahi yuusuf axmedna xiray markaas waxay ku talagaleen inay soo saaraan u muuqatay dowladda siyaasadeedu saan u aragnay u muuqatay inay SSDF ay maaragtay ay wiiqaan oo ay u arkeen SSDF inaan danteedu aysan ku jirin marka day ka dagaalamaysay gobollada dhexe iyo mudug iyo gobolladii north east la dhihi jiray markaa kabacdi u wareejiyey maslaxadoodii dhinaca SNM oo iyagii soo kiciyey oo iyagii hubeeyey hubkaasna uu ahaa hub ay dowladda heshiiskii ay ku burisay labadooda ay galeen dee taasaa carqalatada ugu weyn ugu horreysay dowladda etoobiya u sabab ahayd iyo raggii SNMta madaxda u ahaa oo dagaalka sokeeye soo qaaday burcana ku soo qaaday hargeysana ku soo qaaday baa sabab u ahaa annagu mar haddaan saraakiishii ciidamada horta sinka sarkaal markuu yahay waa la dhaariyaa ama mas-uul kasta oo mas-uuliyad qaba waa la dhaariya waxaa lagu dhaariyaa inuu daacad u yahay dalkiisa inuu difaaco ka difaaco cadow gudaha iyo cadow dibadda ah dee waxaan u dhaarannay ama saraakiisha u noqonnay ama ciidanka u galle baa saas ahayd taasna anu shakhsiyan baanba aaminsanay mar haddaad dalkaaga u dhaaratid waxa weeye dhaartaad martay inaad fulisid baa waajib kugu ah maadaama aad tidha haddaba inaantay anigu waxaan u dhaartay dalka inaan difaaco guda iyo dibadba ilaa heerkee ayay gaadhsiisan tahay matalan ninka sarkaalka ciidamada sidaadoo kale oo inaantay darajo weyn ciidamada ka hayay ilaa halkee ayuu gaadhsan yahay matalan difaaca gudaha oo kale matalan tusaalahaan haddaad soo qaado dadka qaarkood waxay ku doodeen ay leeyihiin sarkaalka ama ciidamada soomaaliyeed daw ma ahayd in magaalooyinkooda ay garaacaan dadkooda rayidka ay laayaan sidee baad u aragtaa dooda caynkaas ciidan waxaa loo abuuray ciidamada qalabkasta waxaa loo abuuray ama dowladba u samaysatay inay difaacdo dalkeeda dalka hadday difaaco lama oran kii soomaaliga ahaa xuduudka inta ka baxdid oo cadow soo raacdid dalkaagii soo weerar annagoo marka gacmaha sarkaalkii ciidamada qaranka u dhaartana gacmaha inta laabatid aduu meel iska fadhiiso isdhiibna lama oran taa marka qofka ku doodaya waxaan qabaa inuusan xaq u lahayn annagu khaa'imin ma aanaan ahayn waxaan ahayn dalkanaga inay xaq nagu tahay waajib nagu tahay difaacaysa muqadasna inay tahay maxaad u malaynaysaa jalmo garow inay ahayd matalan okay waa mucaaradid way ka horiman kartaa mid humaysan iyo mid gudahaaba laakiin markaad qiyaaso inaantay maadaama ninkii ugu sarreeyey meesha xukumi ahayd in shacbiga oo dhamme kaa raaco maxaa keenay bay kula tahay ana waxaan ku horta dhibaatooyin waqooyi bilowgoodii aniga 2 sano waa iga horreeyey anuu markaa wakhtigaan tegayo waxaan hadalkayga ku jirtay meel kacsan oo dhibaatooyin ka jiraan dee ayaan markaas tegey laakiin waajib haddana igu ahayd haddaad mas-uul tahay inaad barnaamijkii aad wax kaga qaban kartid inaad samaysid waana samaynay ilaa xadna waa samaynay waana ku dadaalay laakiin hadallada laleeyahay baalkii muxuu ahaa ama laysla dhex maro leeyahay shacab baa diyaarada lagu duqeeyey shacab baa la laayey
tanoo dagaal arrintu iyadoo aan dhammaanin oo aan waqooyi lagu kala bixin yaa sideedabanu 1988 ayaa layga bedelay iyadoo weli xiisadii taagna aysan dhammaanin saraakiil kale ay bedeshay oo dhammaystirkeeda la weydiin karaa laakiin anugu kolleyba intaan joogay waxaa weeye muxuu ahaa ama taliska iga sarreeya noqoto oo wasiirkii gaashaandhigga madaxweynaha iyo mas-uuliyadda markaas amarkay siinaysa ha noqotee waxa weeye waxaan qabnaa inay ahayd waajib dalka in la difaacdo ayaan qabaa horta runtii waa wakhtiyaasha hadda aad sheegaysay ee jabhaduhu ay kaceen ama ilaa xamar la soo gaaray waxaa markii dagaalada sokeeye ka bilaabanayeen waxaan ahaa wasiirkii gaashaandhigan ahaa waxaa weeye arrimahaas waxaa weeye tayadii ciidanka wakhtiga isaga ahaa ama dhinaca moral ha noqoto ama tayadii ciidanku lahaa run ahaantii waxaa weeye hoos bay u dhacday midda labaadna waxaa weeye ciidan haddii qabiil soo galo oo ay ka baxaan hadafkii guud ay u dhaarteen qarannimo hadduu ka baxo ay qabiil ku biiraanna dee burburka waxaa keena markii arrintii qabiil ciidanka laftiisa qabiil soo galay in badan oo saraakiila ama ciidamadaah ayaa waxay go'aansadeen markay xaaladda saa u arkeen inaysan dagaalamin waa isaga baxeen oo waxaa weeye dagaalka saas uusan u suurtoobin ciidamadii awoodda lahaa inay hubkooda isaga tagaan aan kaa dhex galay inaantay waxaad ii sheegtay yani ciidanku inuu dabcay inuu hoos usii dhacayay dad badan waxay ku doodaan ay yidhaahdaan maamulkii ciidamada ayaa dadkii niya jabiyey oo matalan hadday noqoto sida abaalmarinta loo bixinayo sida dadka loo dallacsiinayo sida loo kala reebayo taasaa keentay in dad badan ay ku niyad jabaan oo u arki waayaan ciidamadiina yaanay ahayn ciidamadii soomaaliya oo dhan maxaad u aragtaa adigu taa taas waa runtood wey waxyaalaha haddii aan dabacaan sheegayo markii dee maamul anuu hebel baa maamulaya ma odhanayo laakiin ciidanku waqti uu ahaa ciidan qarameed qaran soomaaliyeed oo isku duubnaa cadaalad darrada ciidanka labtiisa dhexaysa hadday ka dhacdo ama qof isku korsaah qof kala dhaafiyo ama qaabka sarkaalka loo diyaariyo ama darajada ku dallaco qaab sharciga u degan ciidamada ayaa jira qofku layskama siiyo darajada aqoon buu ku qaataa wuxuu ku qaataa dagaal buu ku qaataa abaalmarino noocaasiya marka waa jirtay ciidamadu in badan ay ku dhacday waxtabasho noocaasa oo moraalka waxyaalaha moral markaan leeyahay waxyaalaha moraalka ciidamada hoos u dhigay oo ay ka mid ahayd kaasi waxa uu ahaa jenaraal maxamed siciid xirsi moorganna